السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأنا سلام يا أصحاب janaalkayga ku xiran meel kastoo aad caalamka joogtaan. Waxaan idin leeyahay maalin wanaagsan. Inta habeen u tahana habeen wanaagsan. Waan idin mahadcelinayaa sida wanaaga badan, sharafta badan, quruxda badan. Marka aad daawataan muuqaaladayda aad igu dhiirigelisaan inaan muuqaalada soo badiyo, inaan wax badan oo fiican ka hadlo, inaan idinla wadaago inta yar ee aqoonta ah ee barnaamijyadan digital businesska ama ganacsiga online-ka ah, ama ha noqoto dhinaca baraha bulshada ama social media business ama marketing ha noqoto, ama qaybaha kale ee businesska online-ka maanta teknolojiyada looga faa'iideysta marka aan soo duubo inta yar oo aan bartaa idinla wadaago. Sida aad igu mahadcelisaan isla markaana aad igu dhiirigelisaan su'aalana aad iga weydiisaan aad iyo aad baan idinkaga mahadcelinayaa. Run ahaantii haddii idinka aadan ahayn wax badan ma samayn kari lahayn. Haddii idinka aadan ahayn research badan ama cilmi baaris badan ma samayn lahayn. Idinka markaa dabcan kasbaday inaan waxyaalo badan idinla wadaago. Cilmi aqoon ay ku dheehan tahay. Insha Allah aan rajaynaa inaan ka wada faa'iideysano. Sida mar walba halhayskayga anigu waxaan u taagnahay dhalinyarada Soomaaliyeed meel kastoo caalamka ay ka joogaan inaan la garab istaago wixii talo wixii tusaalooyin wixii horumar iyo wixii aan isleeyahay cilmi ama aqoon waad ku dhaantaa maanta ama waad gaarsiin kartaa ayaan diyaar idin laahay. Mar walbana halhayskayga dhalinyarada Soomaaliyeed ayaan u taaganahay. Haddii Ilaahay nafta ii daastay inta aan noolahay wixii aniga aan idinku dhaamo ama inta aan idinka weynahay cilmigii iyo experience-gii ama khibradda aan leeyahay inaan insha Allah idinla wadaago. Waa waxyaalaha mar walba aan jeclahay. Run ahaantiina hadafkayga kamid hadafyadayda muhiimka ee aan leeyahay ay kamid tahay. Maanta waxaan rabaa inaan ka jawaabo su'aal badan igu soo noqnoqotay ana dareemay in uu jiro isfahan la'aan su'aashaasi la fahmi waayo ama mowduucaas markastoo aan ka hadlo dadka ay si kale u qaataan ama si kale u fahmaan si kastaba aan yiraahdo ayaan rabaa insha Allah inaan idinla wadaago. Balan isku day af Soomaali ahaan ilaa xad inaan qeexi karo inaan idin يعني فاهين كبحين كرو سيد أفهمتان موضوع أو موضوع وين هسه هاتي لكن وحمهمة فهمك أما concept قربته إن لفهمه موضوعاني المرة البابا أن أوجه هذا المهم ونوجي هاي موضوع سيوحي هاي سيدا أما هبك أونلاين أما محل هذا إنترنت دقالة لوجا سميه طبعا qof walba markuu soo gala ama uu daawado muuqaalada wuxuu arkaa amaba online-ka aad gashid sida online-ka lacag loogu sameeyo sida online-ka lacag looga sameeyo sida online-ka lacag loogu sameeyo sida online-ka lacag loogu sameeyo isla markaana qofka hatuusan cilmi badan u lahayn ama khibrad ku filan uusan haysanin wuu ku dhex wareeraa inta badan. waxaa laga yaabaa Google inaad ku qortid, waxaa laga yaabaa YouTube inaad ku qortid sida online-ka lacag looga sameeyo, xagee baan online-ka lacag ka bilaabi karaa, waxu sameyn karaa inaad 100 qof raadisid sida muuqaalada qaar baan ku soo qaatay aadan lahayn qof ku maxay ahayd coach ku aadan lahayn tababar aadan haysanin qof mentor oo aad istiraahdo yes qofkana wuxuu ka hadlay xaqiiqiga inaad weysa ayaa dhici karto marka aad in badan ku dhex mashquusho in badan ku dhex warwareegto waqti badan uu kaaga dhumo ayaa dhici karto. waxaan rabaa marka mowduucaasi haddii aan dul istaago waxa weeyaan sida online-ka ama internet-ka lacag loogu sameeyo. run ahaantii internet-ka saad ogtihiin dukaan meel ka furan ma aha, sidoo kale shirkad meel ka furan oo meel joogta ma aha. internet-ka waa macluumaad information ama aalad loogu talagalay in dadka ay ku wadaagaan macluumaadka. Facebook oo kale kamid email-ladii kamid waxaa kamid sida aragteen maxay ahayd website-yada kamid wax kasta oo internet-kaasi waa aalad loogu talagalay dadka inay isugu gudbiyaan mowduuc ama macluumaad ama information ama inay wax ku kala bartaan ama ay wax isku weydaarsadaan ayaa loogu talagalay. Tusaale haddii aan dib idinkugu celiyo haddii aan u laabano qarnigii tagay sagaashameeyadii ama 1900 iyo 800 1960 haddii aan u noqono
amaba kasoo qaad asxaabihii aan tagno ma jiri jirin dadka meel macluumaad isugu gudbiyo warqado ayaa lasu qori jiray ama boosto waqti dheer qaadato ayaa lasu diri jiray sidaas ayaa dadka macluumaad isku heli jireen laakiin maanta daqiiqad kasta ilbiriqsi kasto waxaa lagu sheekaystaa WhatsApp ilbiriqsi kasto meel kastoo dadka ay caalamka joogaan waxay ku kulmaan email waxay ku kulmaan Facebook macnaha mawduucyadaasi ama aaladaasi wax fududaysa ayaa internet la yiraahdaa aaladaas marka wax fududaysay iyada marka inta aad qaadatid lacag kuma sameyn kartid inta aad qaadatid lacag kama sameyn kartid because aalad lacag kama sameyn kartid waxay u baahan tahay marka in la fahmo sida internetka lacag loogu sameeyo micnaha waxa loola jeeda adigoo internetka isticmaalayo adigoo ka faa'iideysanayo aaladan sidee baad lacag u sameyn kartaa maadaama adduunkii oo dhan uu ku jiro hal qolkaasi lagu wada wadaagayo informationada lagu wadaagayo ee dadka ku kulmayaan in wax kasto maanta saaka ka soo baxa New York xaafadaada ay kugu imaanayaan wax kasto ka soo baxa Moscow xaafadaada ay kugu imaanayaan sidee baad uga faa'iideysan kartaa sidee baad dhaqaale uga sameyn kartaa sidee baad shirkadaha online-ka ama dawladaha maxay ahayd hay'adaha online-ka ama dukaamada online-ka ama dhan kasto ha noqoto ama social media baraha adigoo adeegsanay aad lacag ugu sameyn kartaa wayaan su'aasha markaa waxaad moodaa marka su'aashaasi dadkeena Soomaalida inay si u marayso oysan toos si direct aysan su'aashaas u fahmin oo ah adiga oo internetka adeegsanayo aaladan adeegsanayo sidee baad lacag uga sameyn kartaa aan ku celiyo marka adiga oo internetka adeegsanayo aaladan caalamiga ah adeegsanayo wax kasta kuu fududaysa sidee baad adiga iyada adeegsanaysid aad lacag u sameyn kartaa sidee baad bulsho kasban kartaa sideed baad shacbiyad u kasban kartaa adigoo aaladan ka faa'iideysanaysa muhiimadda loola jeeda marka waa taa laakiin dadkeena waxay u fahmeen internetka albaab la gargaraacayo albaabkaas marka kuu furmana lacag laga sameynayo dukaan la gargaraacayo ama la furayo ama gambaleelkiisa la taabanayo markaad gashidna aad lacag ku sameyn kartid no taas ma aha marka taas ma waa inaan fahanaa internetka marka aad lacag ka sameynaysid waa inaad leedahay xirfadaasi waa inaad adeegsataa xirfadaasi waa inay tahay xirfad bulshada u baahan tahay xirfada waa inay tahay xirfad adduunka looga baahan yahay inay tahay inaad adeegsatid sidoo kale adduunka internetka wuxuu kuu fududeynaa inaad system samaysid sida Facebook oo kale inaad system samaysid sida Amazon oo kale systemkaasi dadka ay adeegsadaan adigana aad lacag ku samaysid sidoo kale internet waxaad uga faa'iideysan kartaa in asxaab badan oo meelo kala duwan joogto inaad isku xirtid oo aad u samaysid YouTube kale page aad u samaysid ama Facebook page aad u samaysid oo ay ku daawadaan muuqaaladaada markay daawadaan shirkado u baahan macaamiishaada inay macmiil ka sii dhaxelaan ay daawadaan ay soo galaan clip xayeysiin ah saarto shirkadahoodii si ay macluumaadkaasi dadka u gaarsiiyaan sida ay macluumaadka dadkaasi u gaarsiiyaan isla markaana halkaasi macmiil ay uga helaan dadka adiga aad lahayd shacbiyada adiga aad kasbato sida iyaga uga dhaxelaan calashan macmiil ay uga dhaxelaan ay shirkadaha u soo dul saaranayaan in kilibyada la daawanayo lacagta lagu bixiyo sababtoo qofka markuu xayeysiin sameeyo xayeysiintiisa dadkay gaartay qof walba xayeysiintiisa daawada ama click siiyo lacag ba ku bixayso Facebook lacag bay ka qaadanaysaa shirkadaha sidoo kale adigana lacagtaas baad wax ka helaysaa YouTube waa sidaas oo kale marka YouTube-ka la daawanayo kilibka xayeysiinta soo gashay ayaa lacagta ay ku bixinayaan shirkadaha isla markaana lacagtaas adigana qayb baad ka helaysaa YouTube-na qayb uu ka helay waxaan waa aalad la samaystay marka waxaa naga maqan shacbiyad sideen ku samaysan karnaa si aan internetka lacag ugu sameyno laakiin inaan dhahna ma aha sidee baan lacag u sameyn karnaa anagoo internetka albaabkiisa garaacayno sidee baan lacag u sameyn karnaa anagoo internetka galayno macquul ma noqonayso waa in aan ogaanaa sidee baan shacbiyad ku kasban karnaa sidee baan dad ku kasban karnaa si aan lacag uga sameyn hadday noqon lahayd muuqaaladaas lagu daawado hadday noqon lahayd product shirkad kale ay leedahay aad iibiso sida network marketing oo kale sidoo kale affiliate marketing oo kale dhammaan businessyadan online-ka ah si kastaba ha noqotee waa inaad la timaadaa ama xirfad ama waa inaad la timaada shacbiyad waa inaad la timaada shacbiyadaas dadkaas shacabkaasi marka lagaa gata shirkadaha ay kaa gataan haddaba marka sidee baan xirfad laba arinooda marka idinka rabaa dhalinyarada Soomaaliyeed inaad fahantaan qodobka ugu horeeya waa inaad isweydiisaa sidee baan xirfad adduunka aan kaga shaqaysto aan ku samaysan karaa xirfad sidee baan ku samaysan karaa waa inaad marka xirfad raadiso xirfadaasi inay noqoto in badan baan ka hadlay waxaad adiga jeceshahay wax markaad samaynaysa aad ku faraxsantahay waa inay noqotaa sidoo kale qodobka labaad waa inaad raadisaa oo tiraahdaa sidee baan shacbiyad ku kasban karaa shacbiyad sidee ku kasban karaa xalwo waa gabar Soomaaliyeed Norway degan tahay sidee baan xalwo ku kasban karaa si ay uga mid noqoto tiimkayga
sidoo kale sideen ku kasban karaa cali oo hargeysa jooga inuu tiimkayga kamid noqdo sidee baan ku kasban karaa aamino nairobi joogto inay tiimkayga kamid noqoto macnaha waxaa la rabaa inay kaa go-an tahay inaad shacbiyad samaysid marka aad shacbiyad samaysatid waxaad ogaataa dhaqaalaha wuu imaanayaa si fudud ayaadna internetka adigoo aaladaas aad internetka ku leedahay ama kanaalkaasi ama facebook pagekaasi ama barahaasi internetka aad ku leedahay adoo adeegsanaysa ayaad lacag samaynaysaa shirkadaha kale iyagoo markaasi kaaga faa'iidaysanaya hadda waxaa soo baxda wax la yidhahda podcast waa meelaha ugu badan hadda lacagta laga sameeyo insha Allah 10 raba inaan ka sameeyo sidoo kale dhalinyaro badan waxay soo weydiiyeen copyright oo kale taas markay noqoto copyright iyo waa xirfad waa inaad yeelataan waa muhiim qodobka labaad oo ah markay noqoto inaad shacbiyad yeelataan waa qodobka labaad waa muhiim labada hadaa samaysid internetka lacag waad ku sameyn kartaa adigoo adeegsanaya hadaad ifahmaysaan internetka lacag waad ku sameyn kartaa adigoo adeegsanaya haddii shacbiyad aad samaysato ama xirfad aad samaysatid xirfadaas waxaa kamid ah sida forex oo kale haddii forexka aad baratid forexki markaad baratid shirkadihii iyo sidii lacagihii caalamka isugu bedelaysa aad baratid lacag waad ka samaysan kartaa nolol maalmeedkaada waad ka dhacsan kartaa marka waxaan rabaa dhalinyarada Soomaaliyeed inay fahmaan inaadan raadinin albaab internet la yiraahdo markaad gargaraacdid lacag ay kaaga bilaabanayso ama mushahar ku siinay shirkad online ah ama shirkad internet ah oo lacag iska kaasiinaysa ma jirto shirkadaha loo daawado fiidiyoada loo daawado ha noqotan kuwa page-kaada ha noqoto dhinac kasta noqoto qaybta wixii monetization kale isku dhaw waxay kaaga baahan yihiin shacbiyad wax daawato shirkadaha la isku yiraahdo kuwa wax iibsada ama network marketing ha noqoto ama affiliate market ha noqoto waxay kaaga baahan yihiin shacbiyad aad leedahay oo wax ka dhex iibsato iyaga markay soo dhigtaan productigooda markay soo dhigtaan waa inaad leedahay sidoo kale haddii aad xirfad leedahay adduunka meel kastoo aad tagtid kaga shaqaysan kartaa online adigoo gurigaada jooga kaliya internetkaasi xirfadaada ku isticmaalaya computerkaada sidaan hore uga hadlay waxaan ka rabaa marka inaadan waqti isaga luminin raadinta googlaha intaan lacag ka sameyn karaa xageen lacag ku sameyn karaa inaad youtube waqti isaga luminin xagee baan lacag ku sameyn karaa laakiin aad ogaataan ama xirfad inaad la imaataan ama bulsho inaad kasbataan si markaa muuqaalada idinkugu daawato shirkadihii markaa ay lacag idin siiyeen lacagta si aad wax oga heshaan waxaan hore usoo dhigay shirkado badan sida Rumble oo kale lacag laga sameeyo Rumble haddii aadan shacbiyad lahayn oo muuqaaladaada dad ku daawado 10,000 20,000 oo ku daawata aadan lacag kama sameyn kartid waa in Rumble haddii aad sameynaysid shacbiyad aad la timaadid oo dadkaada tusaale ahaan Instagram waa inaad ku leedahay dhowr kun oo dad inaad ku leedahay ama dhowr boqol kun inaad ku leedahay oo marka muuqaalkaas aad dhigtay ay ku daawadaan si aad lacag uga samaysid ama Facebook inaad team ku leedahay asxaab ku leedahay oo ilaa 10,000 ilaa 20,000 oo aad ku leedahay dad macaamiil ah ama shacbiyad adiga aad kasbatay oo muuqaaladaada ku daawan karaan waa inaad leedahay haddii aad leeyahay Rumble lacag kama sameyn kartid macnaha haddii Rumble uusan ku lahayn subscribe badan samayso uusan ku lahayn micnaheedu ma aha inuu lacag badan ku sameynayso adoon subscribe lahayn waa inaad adiga raadisaa marka shacbiyada waa inaad adiga keensataa dadkii daawan lahay muuqaaladaada lacagta lagugu sameyn lahaa waa inaad Facebook waa sidoo kale shuruudo badan ha jiro waa inaad shuruudaha buuxisaa micnaha ma aha wax meel cid saga helaa inta shirkada oo aan soo dhigay ama website aan soo dhigay micnaheeda kama jeedi website-kaas intaad gargaraacdo lacag ka helayso website-kaas wuxuu ka rabaa shacbiyad wax daawato ka rabaa adiga aad leedahay ka rabaa ama wuxuu ka rabaa inaad productigiisa dib u sii iibiso kadibna adiga aad faa'iido ka hesho ama wuxuu ka rabaa muuqaaladiisa in aad maxay haday shacbiyad badan oo daawato u keento ama haddii aan ku noqdo qeybaha xirfadaha oo kale waxay ka rabaan xirfad inaad la timaadid muhiimaddu waxay tahay marka inaad xirfad la timaadid haddii aad doonaysid waxaa laga rabaa marka ugu horeysa luqadda Englishka inaad si fiican u fahansan tahay ama aad luqadda Englishka taqaanid ama aad maanta laga bilaabo aad u qalab qaadad sidaad u baran lahayd sababtoo ah wax kastoo aad qabanayso maanta waa English online kada ka shaqeynaysid everything oo aad sameynaysid dependent on English inaad taqaanid so luqadda Englishka waa inaad xoogga saartaan ama akhrisku baro ama koorsooyin qaado ama macallimiin la xiriir luqadda Englishka waa inaad xoog saartaan sidoo kale waa inaad internet haysataan isla markaana xirfad aad barataan haddii xirfad aadan haysan shacbiyad samayso Facebook page furo ama Instagram furo page-kaasi dad ama TikTok furo page-kaasi dad badan shacbiyad ku yeela markaa kadib u dhaqaaq inaad markaa aad ku samaysid barahii daawashada lacag aad ku samaysid laakiin markii hore shacbiyad ayaa lagaaga baahan yahay shacbiyadan iskama timaado ilaa adiga wax wanaagsan aad la timaado shacbiyad iskagama kaa timaado ilaa adiga aad isbedeshid oo wax dadka wax tar leh aad u keentid waxaa laga yaabaa waxa aniga aan soo gudbinayoba inaadba fahansaneen oo adiga ay kuu tahay wax waqti lumis ah laakiin mar walba waqtigeygana waxaan geliyaa wax tar leh bulshada Soomaaliyeed gaar ahaan dhalinyarada anfacayo laga yaabo laakiin adiga inay ku anficin
laakiin waxaad ogaataa qeybahaas mid kamid unbaa ku anfici doono oo adiga waxaad ku fiicanta aad ka dhexelaysaa. haddii aad ka dhexelin weli waad sii soconaysaa, waxaad raadinaysaa qof macquul ah ee aad aamini kartid, ee waxa uu sheegaya aad wax ka baran kartid, ama kuu ah coach kuu noqon karo, ee ku hagi karo, ee ugu yaraan meelaha aad waxa ka heli lahayd kuu tilmaami kara inaad raasatid. waa lagama maarmaan dhalinyarada Soomaaliyeed. ugu dambeyn markaa aniga oo waqti badan idinka dhuminayn, waxaan rabaa dhalinyarada Soomaaliyeed inaan mar kale idinla wadaago, iyo mar labaad iyo mar saddexaad aan idin iraahdo, maanta waxaa lagu jira xilliga teknolojiyadda. internetkana haddii adiga aad fahantid sida aad lacag ugu sameyn lahayd way fududahay, laakiin waxay u baahan tahay marka ugu horeyso inaad waqti badan gelisid, inaad dadaal badan gelisid, inaad samar badan la timaadid, inaad rabitaan badan la timaadid, in marnaba aadan isdhiibin, inaad hesho cid ku hagtid oo kugu hagto meesha saxda adiga aad rabtid. ilan adiga iyo aniga isku mid ma noqon karno. qof walba wax buu jecel yahay inuu sameeyo, qof walba wax buu ku fiican yahay, qof walba Ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu siiyey wax uu heybad u leeyahay oo ku fiican yahay. marka waxaa kuu muhiima inaad raadisid xirfadda aad baratay ama muhiimada aad leedahay ee passiontigaada ah, meesha aad ka heli kartid, cidda aad ka heli kartid, sida aad ku baran kartid, iyo sida ugu fudud ee aad uga shaqatay kartid. sababtoo markaan kuleeyahay baran maaha inaad kuleeyahay dugsi sare aad, dugsi hoose dhexe aad, dugsi sare aad, jaamacad aad, laakiin waa inaad koorsooyin qaadataa, waa inaad heshaa cid ku hagtaa, waa inaad heshaa qof joogta marka aad xaalad kaa xumaatoba aad la xiriiri kartid oo ku hagi kara, waa inaad heshaa. sida cashir maalin dhaweed aan idinla wadaagan usoo dhigay, waxaa jira macalin Soomaali ah oo aan la xiriiray markaan ogaaday in dhalinyaro Soomaaliyeed u baahanta luqadda Englishka, isla markaana bixiyo koorsooyin college ah. collegekaasi waxaa la yiraahdaa Super International College ayaa la yiraahdaa. dhalinyaro badan ka qalin jabisay luqadda Englishka lagu dhigaa. sidoo kale cashirada wuxuu ku bixiyaa qaab Zoom ah ama live Zoom ah, iyo sidoo kale iyagoo online ah oo qofka loo soo diray hadduu qofka uu online uusan haysan, internet uu haysanin. macalinkaasi qaybta hoose ayaan soo dhigi doonaa telephone numberka, telephone numberkooda, iyo sidoo kale meelaha aad kala xiriiri kartiin. sidoo kale inaan wareysi kasoo qaado ayaan ku ballansaneen, ama uu kalibeer uu nala wadaago, isagaa nala wadaagi doona. haddaba haddii aad doonaysa markaa inaad luqadda Englishka baratid, haday noqon lahayd dhinaca qoraalka, akhrinta iyo hadalkaba, waxaan kugula talin lahaa Super College inaad la xiriirtid si aad uga baratid luqadda adigoo gurigaada jooga, qaab online aad uga qaadatid, si yar oo fudud oo tixgelin iyo ku dheehan tahay, wanaag iyo soo dhaweyn ay ku dheehan tahay. waxaan markaa la idin leeyahay dhalinyarada Soomaaliyeed meel kastoo aad joogtaan iyo si kastoo aad ii daawanaysaanba, haddii muuqaalkan aad soo daawatay, dabcan waxaa tahay qof hami leh, hadaf leh, himilo leh, isla markaana riyo u hiigsada leh ayaa tahay. riyadaada marnaba ha ka tegin, marnaba ha isdhiibin. adduunkan dadka guuleysto isma dhiibaan. 10,000 20,000 jeer ay ku noqdaan, ilaa 10,000 oo ay ku noqdaan si ay u gaaraan hadafyadooda. marka waxaad u baahan tahay inaadan marnaba aad isdhiibin, ay kaa go'naato, horena aad u socotaan. insha Allah waad samayn kartaan, wax kasta waad samayn kartaan. internetka lacag waad ku samayn kartaan, sidoo kale offline iyo online labadaba lacag waad ku samayn kartaan. keli waxa idinka maqan waxa weeyaan inaad xirfadii barataan, skillski inaad barataan, iyo waxyaalaha shuruudaha sida internetka kale aad haysataan, iyo inaad heshaan coach markaasi idin hago waxa aad doonaysaan inaad ka barataan, idinku hago inaad heshaan. dhalinyarada Soomaaliyeed runtii waxaa tihiin dad aan jeclahay, aan horumarkooda rabo, dareenkiina iyo dareenkaygana ay isku xiran yihiin, oo waxaan ahay dabcan dad Soomaali ah meel kastoo joogtaan. Soomaali aan xad ima kala laha. dhalinyarada Soomaaliyeed meel kastoo joogaan waxaan aaminsanahay inaan isku dareennahay, inaan isku hadafnahay, sidoo kale inaan nahay dad marnaba aan kala maarmin, oo ay muhiim tahay inaan wax wada qabsano, aan wada shaqaysano, horumarna aan wada gaarno. tan iyo intaan ku kulmi doono muuqaal kan lamid ahna waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.